بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله walaalaha Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waxaan idin kala soo hadlayaa waa magaalada Muqdisho maanta runtii balantaynay ahayd in aan hoolka saal isugu imaanno sidii aan filayay horta ma aanay noqon waxaan aad iyo aad u maleynayay in 2000 3000 4000 intii aan sameynay ee aan gobolay laakiin runtii qalbigii magaalada aan ku imid ayaa runtii soo baxay qalbiyadii wanaagsanaa way soo baxeen magaaladii bar ayaa halkii yimid waxaan ugu talagalayna ma ahay waxaan aad iyo aad runtii uga cudur daaranayaa in dadkii maanta wada yimid in ay hoolkii soo gali waayeen in aan la kulmi waayay oo ay arki waayeen anna markaa hoolka markii aan tagay wuxuu runtii damiirkayga isiin waayay dhowrka kun ee hod gudaha ku jirta ee gale ee waqti hore yimid in aan la hadlo boqolaalka kun ee kale banaanka taaganna ay ka qadaan sidaa aawadeed ayaan u soo gaabiyey hadalkaygii maanta waxaana runtii halkaa ku ballan qaaday in goordhow hadduu ilaahay idmo meel ka ballaaran kana weyn meeshii maanta in aan runtii shacabku u ka shaqayn doono madaxdu ka shaqayn doonaan halkaana aan maaragtaaye dadweynaha kula kulmi doono aad iyo aad baan uga cudur daaranayaa maanta haddaanan meeshaa la soo wada gelin haddaana maaragtaaye hadalkeeni si fiican uusan u dhicin laakiin waxaad ogaataan qalbigaas aad ku imaadeen ee aad guryihiinii uga soo tagteen in ilaahay idiin xisaabinayo in sha allahu tacaala waxaan mar kale aan ballan qaadayaa in aan dadweynaha la kulmi doono goordhowna kula kulmi doono meel intaan ka ballaaran ilaahay waxaan ka baryayaa maanta intii timid iyo intii qalbiga igala socday soomaalida meel walbo ay joogto in ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro waan idinkaga mahad celinayaa qalbiyadiina wanaagsan qalbiga wax lagu dhisaa qofkan waa qalbiyada aynu ilaalinno weli waa barnaamijkeennii cafi walaalka aad baad u mahadsan tihiin dadkii wax gaareen sheekh maxamed runtii dadkii markii ay maanta aad iyo aad u bateen oo hoolkiina uu buuxsamay la dhaafi waayey runtii ilaa iyo taleex lambar 4 la dhaafi waayey xagga ilaa aeroboortkii oo waddadii ay xirantay ayaa dadka qaarkii waxay u maleeyeen in hoolka uu bannaan yaho la xirayo marka dadkiiba isyaro buursaday dad baa marka ku dhaawacmay ilaahay waxaan uga baryayaa dadkaa dhaawacmay ee labada ah ee la sheegayo runtii aad baan idiin salaamayaa ilaahayna waxaan kaga baryayaa inuu idiin boogadhayo waxaana dadweynaha yaqaana waana booqan doonaa biidn illaahi tacaala meel walbo ay joogaane in wax walbo gabdhaha loo qaban karo booqasho hadday noqoto haddii dhiirgelin ay noqoto haddii duco ay noqoto iyo haddii xataa maaragtaaye dee waa dad dhaawacmay maaragtaaye si walbo lagu caawin karana waa codsanayaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa ilaahayna waa idiin soo baryayaa gabdhaha dhaawacmay aadna waa idiin jeclahay runtii qalbigayga idinla jira weligeena idinla jiri doona ilaahayna ruuxul qudus idinku xoojiyo hana idiin boogadhayo aad baad Soomaali meel walba ay joogto aad baan u salaamayaa